kulanti wacan wanaagsan barqa wacan daawada meel walba joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filimada iyo sidoo kale akhbaaraadka wixii xiisaha badan ee laga qoray arrimaha koonfurta iyo sidoo kale Bollywoodka. warbixintan barqadan waxaan inta badan ku jeexi doonaa filimka Animal ee tiyaatarada saaran kaasoo wacdarada ugu weyn ka dhigaya tiyaatarada ayaa waxaan isla eegi doonaa lacagaha ee hogaamiyaasha filimkaas ee mid walba lacag ahaan uu faraqa uu ku ritay kaas oo filimka shaqadiisana uu ka qabtay sida hogaamiyaasha filimka Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Rashmi Khanna, Baby Doll isla directorka filimkaas ee Sandeep Reddy Fanga. haddaba waxaan isla eegi doonaa warbixintan ku qotanta arrintaas. ugu dambeyn sugitaanka loo qabo filimka weyn Animal ayaa soo gabagabooday kaas oo hogaamiye ka ah Ranbir Kapoor wuxuuna tiyaatarada u koray 1 December wuxuuna noqday filim sida ugu dhaqsiyaha badan ku noqda mid guuleysta sidoo kale laba maalin gudaheed wuxuu noqday filim ku gaara 100 karoor iyadoo sidoo kalena filimkaas ay noqdeen mid si lamid ah u soo wada dhaweeyeen una amaaneen daawadayaasha iyo dadka filimada naqdiyaan laba maalin iyadoo filimkaas uu socdo taas oo ka dhigtay in box office-kana rikoorooyin filimkan uu kusoo kordhiyo. haddaba filimkan ayaa wuxuu yahay inuu ku hareeraysan buuq dheer kaas oo la xiriiray in filimkan guushiisa ay tahay mid aan la filin karin asaatee ay ka caawisay xayeysiimaha filimkaasi loo sameeyay. haddaba waxaan eegi doonaa warbixinada hogaamiyaasha Ranbir Kapoor, Baby Doll, Rashmi Khanna, Anil Kapoor lacagaha ee faraq ee ku riteen ee filimkan Animal iyo sidoo kale Sandeep Reddy Fanga kaas oo agaasimaha ama directorka filimkaasi ahaa. sida kale hore ay qortay shabakada Bank Filana Ranbir Kapoor ayaa waxaa la sheegay in lacag ahaan inuu qaadan doono lacag u dhaxaysa 30 ilaa 35 karoor kuna qaadan doono filimkiisa Animal. markaan ayaa marka loo fiiriyo wacdarada oo filimkan uu ka dhigo qaybaha tiyaatarada waxay noqotay in loo kordhiyo oo uu noqdo mid la siiyo macaash waali ah iyo sidoo kale saddex dhig marka loo fiiriyo lacagaha filimka uu keenay. markan waxaa la sheegay in Ranbir Kapoor ee lacagihiisa ku qaadan doono filimka ay gaarayso ilaa 70 karoor marka loo fiiriyo waqti xaadirkan suuqa sida uu yahay maadaama filimka uu wacdara uu ka dhigo qaybaha tiyaatarada kuwaas oo isku raaceen soo saarayaasha filimka Bhushan Kumar iyo Sandeep Reddy Fanga kuwaas oo in film soo saaray yihiin waxayna yihiin kuwa 50% uu qaadan doono filimka faa'iideysa Sandeep Reddy Fanga. si wararka ee qoraysa ee Financial Express-na waxaa la sheegay Baby Doll in doorkiisa filimka laadarnimada ee filimkaas uu ku qaatay lacag u dhaxaysa 5 ilaa 4 karoor taas oo sidoo kale atishka Rashmi Khanna la sheegay lacag in la siiyay 4 karoor halka Anil Kapoorna uu qaatay lacag gaaraysa 2 karoor. intaasna waxay ahaayeen hogaamiyaasha filimka kuwaas oo lacagahooda ay yihiin kuwa cayimnaayeen waxaana ugu lacag badnaa jalaaga Ranbir Kapoor oo aad uu kaga lacag badnaa maadaama 70 karoor uu qaatay. markaan fiirno Baby Dollna doorkiisa laadarnimada filimkaas ayaa aad loo soo kaasoo Sandeep Reddy Fanga filimkiisa ugu dambeeyay ka soo muuqday asaguna dad walba ay ku soo dhaweeyeen doorkiisa filimkaasi maadaama sanadii ugu dambeeyay ahayd mid aad u dhacday xirfadiisa xagga jilaanimada. Baby Doll waxa la arkay in uu maalmihii ugu dambeeyay oo diiradda u saaray si dib uu isku soo saaro kuwaas oo ka soo muuqdo filimo doorar macno leh xambaarsan. Animal waxa uu dhigantaa in waqti xaadirkan ee jalaagana uu ahayd mid uu ku qabsan karo box office-ka maadaama film soo saarar badan ay la soo xiriiri karaan. jalaagana waxa la arkay ee ka soo muuqdo film Crastry in Guaris dhaxdiisa ku dhex jira ee ilmada uu ka daysay guusha filimkiisa awgeed kuwaas oo Babarazzi ama kuwa wariyaasha sawirada qaadan ee ka qaadayeen muuqaalo iyo sidoo kale sawir asagoo sidoo kale aad ugu mahadcelinayo gacmaha is saaranayo. Animal marka aan fiirno waa film ku saabsan arrimaha dambiyada argudashada kuwaas oo la isku kan jilaal waaweyn sida Ranbir Kapoor, Baby Doll, Rashmi Khanna, Tripti Dimri, Shakti Kapoor iyo Anil Kapoor waxaana directorka ka ah Sandeep Reddy Fanga. filmkan waxaa hal maalin wada koreen tiyaatarada filimka Sam Bahadur kaasoo Vicky Kaushal hogaamiyay ka inkastoo Vicky Kaushal meel cad lagu tagay oo zaaid ayaa lagu lacag sareeyay. si kastaba Animal waxaa suurtagal ah in xitaa 500 karoor oo gaari karo hadduu sidan uu ku socdo lacagiisa wuxuuna ka fiican yahay filimka ugu dambeeyay Salman Khan ee Tiger 3 marka loo fiiriyo ganacsi ahaanta iyo waxdarada uu ka dhigayo qaybaha tiyaatarada. waan arki doonaa filimka markaan fiirin lacagiisa ugu dambeeyay markaan waxay marayaan marka la isku daro dhamaanba Hindiya lacagiisa dhan waxay marayaan 125 karoor ee u dhiganta 2,995,653 doolarka Mareykanka marka laga reebo lacagiisa oo shalay oo axada oo keenay maanta ayaan idin soo gudbin doona lacagaasi saacadooyin kadib intaan ku soo koobnaa daawada bixinadeena barqada laga qoran ma koonfurta Bollywoodka
kuwaas oo saaran waxaan warbixinada ugu dambeeya oo la wadaagi karteen daawadayaashana ku taxan barta tusmada filmada haddaad warbixinaha ka shan leeg noo saar sidoo kale asxaabteen la wadaaga meel walba oo joogtaanna sidaas iyo nabadiino